وبرنامجكeenii dhaqanka iyo suugaanta Soomaalida. barnaamijkan dhaqanka iyo suugaanta Soomaalida had iyo goor dadweynaha waxaan u xilanaa ereyada aan isleenahay waxtar ayay u leeyihiin taasoo had iyo goor ereyadu ku hayaan salka dhaqankeenii iyo hiddadii aynu gaarka u lahayn saas daraadeed halka kan waxaan la joogaa rag aqoon gaara u leh dhaqankii Soomaalida iyo hiddadii aynu lahayn hase ahaatee sabinadii aynu soo dhaafnay dadka Soomaalida iyagoo dhaqanka iyo caadada wanaagsan had iyo goor ay leeyihiin markii gumaysigu uu dalalka Soomaalida ku soo degay waxa dhacday in dhaqankii iyo hiddadii dadka Soomaalida uu lahaa uu aad iyo aad u baaba'ay iyadoo isticmaalku had iyo goor uu kala dirirayay sida hore aan ku sheegay dhaqanka iyo isku xidhnaanshaha iyo xagga diintaba saas daraadeed halka kan waxaan la joogaa oo barnaamijka maanta ka qayb galaya Dr. Shire Jaamac oo dadka af Soomaaliga aad u qora ah si wanaagsanna u darsay afka Soomaaliga ah bal erayada uu ka oran lahaana isagiyo idila hadlaayana aan idinku wareejiyo jaalle waxaanu ka sugnaabaa waa murtidii Soomaalida sidii ay u soo xumaatay iyo maanta halka ay marayso inaad wax nooga sheegto Soomaalidu waxay leedahay murti wanaagsan oo nuxur leh murtida dalkeena iyo dadkeenu waxay leedahay qiimo adag oo runa murtidaasi waxay ka dhalatay dhinaca walba ee ku saabsan nolosha dadkeena iyo dalkeenaba murtidaas waxaa abuuray dadweynaha murtida Soomaalidu waxaa ku jira idinheena iyo dhaqankeena iyada waxaa ku jira gabayo geeraaro sheekooyin heeso mahmaah fara badan murtidaas qiimaha leh qof walba wuxuun buu ka yaqaanaa waayihii hore shirar ayaa la qaban jiray looga sheekaynayo hiddaha iyo murtida Soomaalida nimanka gabayaaga ahi goobo waaweyn iyo shirar kala duwan ayaa loo dhigi jiray nin kasta oo gabayaa ahi wuxuu ka soo qaybgeli jiray shirarkaas iyo goobahaas siduu u muujin lahaa aqoontiisa tartankaas gabayaagii ku liibaana ayaa dadka Soomaalidu u ogolaan jiray libin weyn iyo xurmo aan laga sheekayn karin hiddaha iyo murtida qofkii wax ka yaqaana dadka Soomaalidu way jeclaan jireen sida ay maantaba u jecel yihiin dadka Soomaalidu waa dadka kaliya ee Afrika ku nool oo ka wada siman hiddo iyo murti keligii uu leeyahay hiddaha iyo murtida Soomaaliyeed inkastoo ay ku dhisnayd degmo iyo beelo haddana waxyaalo badan oo wanaagsan ayay lahayd gumaysigii markuu dalkeena soo galay ayuu wuxuu ku dadaalay inuu tirtiro hiddaheena iyo murtideena gumaysigu wuxuu gaarsiiyay hiddaheena iyo murtideena dhaawac weyn taasina gumaysigu wuxuu ula dan lahaa inuu martiguur iyo qaranguur ku rido dadkeena iyo dalkeenaba gumaysigu midaas kuma uu liibaanin maxaa yeelay murtida Soomaalidu waxay lahayd xoog weyn ee uusan marna jabin karin inkastoo af Soomaaligu uunan qornayn haddana gumaysiga uma suurtoobin inuu tirtiro hiddaha iyo murtida Soomaaliyeed intii gumaysigu dhulkeena uu haystay wuxuu geesinimo geliyay murtidii ku dhisnayd dhaqanka gumaysiga iyo gumaysiga cusub gumaysigu wuxuu fogeeyay dadka intii aqoonta u lahayd murtida iyo hiddaha Soomaaliyeed dhalinyarada wuxuu ku tallaali jiray aqoon gumaysiga iyo shisheeye ku dhisan barashada hiddaha iyo murtida Soomaalida wuxuu ku tilmaamay inay yihiin gadaaludhac iyo badweynimo dowladihii dib socodka ahaa iyana waxay geesinimo geliyeen siyaasadii gumaysiga iyo gumaysiga cusub dalkeenu wuxuu soo gaaray waan loo malayn jiray in qofkii af shisheeye ku hadla uu yahay ilbax kii af Soomaali ku hadlaana uu yahay badow 1969 tawradii Oktoobar ee barakaysnayd markii ay dhulkeena ka dhalatay kadib ayaa murtideennii soo fuftay golaha sare ee tawraddu wuxuu geesinimo geliyay murtideena iyo hiddaheena inta wanaagsan jaalle Maxamed Siyaad Barre guddoonshaha golaha sare ee tawradda arrintaas wuxuu ka yiri waa inaanu wax kasta samaynaa sidii aanu u dhigi lahayn taariikhda iyo murtida dalkeena oo aanu uga xoreyn lahayn gumaysiga fiqi buraalow bal adigu
wax kale ma ku dari kartaa intaas? waad mahadsan tahay jaalle shire jaamac. hase ahaatee dadka soomaalida sida aad u sheegtay wuxuu lahaa dhaqan iyo hiddo qoto dheer oo marna aan laga guurin karin. hase ahaatee sida aad u sheegtay ilaa sabanadii dambe af soomaaligu aad buu u xumaaday, taasoo ay ugu wacnaayeen dadka wax gumaysta, ama ha cusbaadeen ama ha horreeyeene. markii towraddeena barakaysani ay dhalatay golaha sare ee towradda waxaa ka soo baxay gubaabo dhaadheer iyo tilmaamo dadka soomaalida lagu tilmaamayo. gaar ahaan waxaan xusuusnahay guddoonshaha golaha sare ee towradda jaalle genaraal maxamed siyaad barre erayo murtiya oo uu yidhi sandareertada bilayn soormood waase lagu sabay. taas haddii aynu sii raacno saldhiggeeda iyo ulajeedadeedu waxa weeye dadkeena soomaalidii ee xoolaha dhaqda ah gaar ahaan lo-da marka ay diidan tahay ama la rabo in laga gowraco debigiisa oo weel kale lagu sidko, sacaas isaga ah caano ayaa sanka lagaga dareeriya iyadoo naaskiisa lagu lisaayo, markaasuu leefleefaa. saas daraaddeed ayuu sacii u godladaa. marka gumaysigu marka uu dadka wax siinayo ee uu sasabanayo had iyo goor wuxuu siiyaa wax isaga dantiisa u ah oo berito uu ku dili doono, laakiin uu u tusaayo inuu daacadu yahay oo ninkaas uu wax siinayo. marka ereygaas haddii aynu dib ugu noqonno arrintiisa sii baadhnay waxa weeye sandareertada bilayn soormood waana lagu sabay. waxaana ereyada halhays ka dhigtay jaalleheen genaraal maxamed siyaad barre. iminkana jaalle aw daahir waxaan ku weydiin lahaa raggeenii hore ee gabayaasha ahaa gaar ahaan sayid maxamed cabdilla xasan markii gumaysiga lala dagaalamayay dadka soomaalidan uu gubaabinayay wuxuu yidhi fiqibarahu jaalle waxyaalaha uu yidhi waa ay tiro badnaayeen. haddaba waxaa jirtay mid jiifta ah oo dadku u wada yaqaano oo ah 170 bayd. 170kaa baydba wuxuu kula hadlayay dadka soomaalida oo jaho walba markaasuu uga jeedinayay. haddaba bal waxaan idoo soo qaadi doonaa midhadh yar oo uu kula hadlayay culimada oo tixdaa ku jirta. wuxuu yidhi dood waxaan u naqayaa culimada dawaafka ah, waraan idinma dooxine idinkaygu diimay, dalkii aad iibiseen baa dacarta igu kiciyey, 5 hal oo idiin daran dannigiinka fiirsada. mar waa inaad dayowdeen diirad hadday idin qabateen, marna deeqda eebbahay debintaa saari maysaan. awyaalow ma diideen jahaadka ma u dareertaan, war ma danana iyo seef degta maad ku qaadaan, darmaan haad la qooqdiyo dawlaab maad u fuushaan, dibirkan diirka qaadka ah bidixda ma ugud legedaan, doodiga xamaalka ah dekirka maad ka goysaan, idinkaa dalkaba lehe dowlad maad u noqotaan, warilayn doone calaf ma leh dulbax maxaa ka baylahay. aniga oo soo gaabinaya wuxuu tusayaa marka inaanay garanin raggii isticmaarka kolkaa la socday nimcada ay leedahay dowladnimadu inaanay fahmin ee ay dabadeed raadinayaan waxoogaa yaroo sidaa sandareerada maxamed siyaad uu ka hadlayo oo kale inay markaa nimco moodeen oo ay ka daahan tahay dowladnimadu iyo madax bannaanaantu iyo nimcada ay leedahay iyo sharafka iyo maalka ku jira inaanay markaa culimadu fahmin. midharkaasoo ugu sheegayo inkastoo aan soo gaabinayo yaa ka mid ahaa jaalle kuwa aad weydiinayso waanay badnaayeen. waad mahadsan tahay jaalle aw daahir. waxaa ii dhiman shire jaamac oo aan halka kan ka weydiinayo ereyo aan soo sheegi doono. ereyadaasi waxay yihiin shire jaamaco dadka soomaalidii runtu waxay tahay had iyo goor inay nacabaayeen gumaysiga, inkasta oo gumaysigu waxyaabo badan oo xunxun uu u geystay. marka waxaa jirtay 43kii dadka soomaalidii gaar ahaan ragga gabyaa inay soomaalida wax badan guubaabiyeen oo had iyo goor ereyga ka soo baxa ama tusaalaha ka soo baxa gumaysiga dadkaa gabyaa ay ka hortegi jireen ninkii daacadii. marka gabayadii raggaasi uu yidhi wax ma ka xusuusanto halka wax ma nooga sheegi kartaa? haa jaalle fiqibaraale waxaan ka hayaa halkan cali xuseen tix ku saabsan guubaabis. soomaalidu markii ay wada damcday inay karaani wada noqoto ee sancadii iyo farsamadii ay isku caayaysay oo ay ka tagtay. cali xuseen wuxuu yidhi doqoniino soomaali daaryahay u daynaye, sidaaday damiin tahay darbi meel la taagaye, danqan mayso weligeed inkastaad dagaashaan, nin dundumo wacdiyayaa isagaa ku daaliye, alla duulku waa maxay dulli baa la saaraye, quruumuhu dalkoodii iyaga u dadaalaye, qaar baa dayuuraad cirka duulinayee, qaar baa bambada duuban soo daadinayee, maraakiib dawaafaysa qaar baa dawarayee,
qaar baa dirays lahoo dibadduun wareegee qaar baa digtii yeedhaba loo qoray dagaalkay soomaalisay damacday dadkuba waa la yaabay dowlad wada karaaniya dunidaba ma joogtee waxaad dabada haysaan dhul ma daafacaysee haddaydan dubayn sulubka dabbaa la ysku dhaafay aynan dubbaha qaadan dawo yeelan maynee maxaa darajo lagu gaaray rag ha loo daliishay waad mahadsan tahay jaalle shire hase ahaatee intaas wax ma noogu daraysaa intaas wallaahi waxaan jeclaan lahaa inaad bal adigu wax noogu kordhisid fuqbaraalow laftaadu waa adigii hiddaha iyo murtida ka shaqayn jiray gabayna waan kugu tuhmaya waa tahay jaalle hase ahaatee ee ereykan aad iminka igu soo leexisay kaama aanan filanaynin waxaan rabay maanta bal anigu inaan murtidaada dhuuxa hase ahaatee dhowr eray yaan halka kan ka sheegayaa waagii dadka soomaalidii uu isu taagay inuu xornimo qaato dad soomaalihiina ay ka soo horjeedeen oo dadkaasoo dhinacyo badan nin walba ay si tabad isu tustay yaa waxaa jiray gabayo badan oo aan idhi hase ahaatee waxaa ka mid ahaa gabayada erey halkan aan ka sheegi doono dadka soomaalida ah tusaaya aboorka marka wuxuu yidhi aboorkuba candhuufada markuu dhoobo ka unkaayo arah buu ku doonaa qoryaha waana ku abyaaye itaal xumada uu qabo guryo yuu kala aslaaxaaye iftiin kuma shaqeeyo ee mugdi yuu ku istihaadaaye innagaaba aadnaya siduu eebbaheen yidhiye aftalna waa ka nahay bahalaha ayda yuurure e maxaa gabayga ayar tushaalaysaf garan waaye marka ereygaa ulajeedadiisu waxay ahayd dadka soomaalidii inuu isku xidhnaado had iyo goor innagoo bini-aadanka uu ka aqoon roo yahay xawayaanka dibadda ku dhaqan mid yar iyo mid weynba marka bal aw daahir isagana halka kan aan laba ereyoo mahmahahii soomaalida ah oo dhaqankeena iyo hiddadeena raacsan bal isagana aan isaga ku leexno inkastoo uusan iska keefulaynin waad mahadsan tahay jaalle mahmahaha waxaa ka mid ahaa raggii hore wuxuu yidhi dhulta raray rag waa kabi karaa taa ka labadeede